jiritaanka Somaliland ayuu halkan Somaliland بلادنا نحبها نعشقها بالأرواح نفديها jinsiyadiisa Soomaalinimo ayuu ku faana Somali baan ahay diridaba ana leh gaarisa ana leh waxa lagu ciilay xadhig iyo caburin maxallaygu xidhaya xagtir layga dhigaya ee lay xanibaya oo lay xaganaya laakiin xabsigu ima hayn karo qalbiga iyo maskaxdu xor baan ka ahay qalbigayga maadaama uu xor yahay maskaxdeedana dadka uu wax u qabtay xataa madaxweyne waxba uma qaban kuwa waalan ee uu u gurmaday halkan ayuu ku xidhan yahay geedkan jirridiisa ciid buu ku cunayaa lug baa go'an 20 sannadood ayuu ahaa xanuunka dhimirka kuwa baahan ee uu caawiyay iyo kuwa xanuunsanaya ee uu caafimaadka la doonay wanaaga uu sameeyay ee uu ku caawiyay boqolaal qoys weli dawladdu may dhiirigelin taa beddelkeedana xadhig iyo ciqaab ayay uga dhigtay waddankayga xoog badan xeelaad u jecelahay waddankayga xoog badan xeelaad u jecelahay laygama xigsanayay jirbaanu qubayaa boolisku waxay u geysteen gafaf sharciga ka hor imanaya inanbuu dhacay inantii waxay muuday tuug dabadna ina yarbaa yidhaah lagu cabdimaalig ha ku qayli annaguna waynu karsinay manteedoynta badhada qabatay ka toodhaysa waxaa la soo xidhay iyada oo aanay cidina soo ashkatayn waxaa la soo xidhay iyada oo waaran maxkamadeedaan la haysan waxaa la baacsan jiray waddooyinka cabdimaalig oo la eryanayo ayaan anay inankoo marar dilaacayo asan awal an xaqiiqa sheegaysa hadduu xagayga u saararo maanta hadduu xagayga u saararo waa badbaadin lahay askarta eryanaysayna waxay ku leeyihiin anu wax kama sheekayn karo maqastiba badmaydiis intaasee loo eryanayo hal abuurihii barnaamijka kaalmee kuwan ayaa la leeyahay isaga maanta kaalmee kan madaxweyne siida waan ku barayaa siida madaxweyne wariyaha siida waxa waayay oo ooyaya 200 qof oo waalan oo xanuunsanayay oo uu khayri uga shaqayn jiray kuwa ku saamax hadduu wax sameeyo baanka waxbuu dhigtay credit buu leeyahay kreditkii uu lahaa in la eego marka la isu jaro ilaahayba xasanaadka iyo dee sayaad qofku sameeyo waa la soo eegaa waa dogay kii haddeeba koroo yahay Itoobiya ka dhacaysay waa ninkii keliya ee suxufiga ahaa ee ka hadlayay buu ahaa ee gurmaday marka nin la dhayalsan karo ma ninkaas wuxuu leeyahay mudnaanshiyo il xuquuqdiisii loo soo celiyay muddo badan hadda waa xukunaa intaa hadda ilaa cafiyo oo madaxweyne waxaanu ku leenahay ilaahay ha ku cafiyey عفس أخي ترى أفر شير أما شت شير بنا بنور بعيد الرعب أنت شير أنا هذا اللي وحنا مدحوينها شمال لان كعسم مدحوين نكاس الرجاء سما فرها عفس أخي مدحوين عفس أخي قف والديدي كرا لبا والديدي كرا طب والديدي كرا لكن مدحوين هو حبلان هذا قبل كي تقدر نجا أقبل أرين كام ما أنت أنقهد لين نكاب ورياء سوفلكا waxaan naga banaanaday gaaf weyn waxaan naga dhindhaaday wax badan tabaal khayr badan baa naga maqnaaday waxaad ku daawan doontaan barnaamijka qareenka qaranka maalinimada axadda habeenka ay isniintu soo galayso saacadda bariga Afrika markay tahay 10 iyo 5 daqiiqo oo habeenimo